mahatma gandhi aqoon-yahan buu ahaa laakiin wuxuu ka santaagi jiray dhaqan cid kale inuu qaato saawgeed wuxuu xidhan jiray laba go' oo cadcad iyo ul buu qaadan jiray labada go' diintan uu haystay iyo dadkiisu waxay dhaqan u lahaayeen go'a hoose marka la guntado inta la duuduubaabaa dabagelis xagga dambaa la geliyaa marka labadaa din dhexdooda inta laga saaro go'a ayaa sidan bambarka carruurta loogu xidho kale ayuu u xidhan yahay dadka waaweyn baa saa u xidhan waxay sheegaan isagoo wixiisaa xidhan buu ingiriiska iyo meelahan yimi wuxuu rabay inuu boqortooyada la kulmo oo uu ka dhaadhiciyo xorriyadda waddankiisu inuu helo markaa ushiisiina sita labadiisii go'na sita waxay dhahdeen mid ingiriis baa oo taygiisii ku bakhtiisanoo xidhan baa wuxuu ku yidhi what is this waa maxay marada dabada gashatee ku xidhantay maxay tahay gaandiinta aanu maradiisa ka jawaabin buu wuxuu weydiiyey what is this taygii uu kani xidhnaa ayuu yidhi kani waa maxay ninka wuxuu yidhi this is necktie kani waa qoorta bahalkii lagu xidhanaya waa qoor ku xidhan and this is back tie buu ku yidhi markaa yacni maxaa ka dhigay adigu maradaad qoorta sudhatana wax musallama anigu taan dabada sudhayna maxaa wargeliyey hadba qoortaad mid iskaga xidhaye anna halkaas iskaga xidhaan buu yidhi tanna baak tahay baa la yidhaahdaa